Digan ka socday madasha wada tashiga qaran ee Higsiga 2016 ee doorashooyinka ka dhici doona dalka Soomaaliya ayaa soo gaaray degmada Garbaare ee xarunta gobolka Gado. Waxaana markii ay soo gaareen garoonka diyaaradaha ee degmada Garbaare ku soo dhaweeyay halkaasi maamulka degmada Garbaare iyo kan gobolka Gado qaybaha kala duwan ee bulshada kuwaas oo lulayay calanka Soomaaliya iyo sidoo kale calanka dowladda Jubbaland. Salaan iyo soo dhaweyn kadib ayaa waxa goobta hadallo soo dhaweyn ah ka yiri gudoomiyaha degmada Garbaare ee xarunta gobolka Gado Nuur Sheekh Maxamed Buraale iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Gado Axmed Buule Maxamed محمود حسن علمي iyo mudanayaasha kale oo la socda asxaabtayada waxaanu leenahay ku soo dhawaada gacmo furan dalku dalkiina weeye dadkuna dadkiina weeye waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan oo walaaltinimo leh ku soo dhawaada magaalada Garbaare wa rahmatullahi wa barakaatuh guddiga gobolka Gado oo ku sugan halkan guddiga degmada hogaaminaya gudoomiyaha degmada hooyooyinka Marwo Batraan gudoomiyaha saddexda gobol xildhibaan Faadumo iyo xildhibaanada kale siyaasiyiinta odayaasha gudoomiyaha guurtida saddexda gobol gudoomiye ku-xigeenka guurtida iyo ku-xigeenkiisa labaad aad iyo aad waxaan u soo dhaweynaynaa waftiga qiimaha badan oo aan sugayna muddadan oo hogaaminayo Maxamuud Xasan Cilmi oo ay ka mid yihiin xildhibaano Jubbaland iyo siyaasiyiin macalinka weynaa ee Kaastro magaalada waydi sugaysay waan idin sugaynaa dadweynihii waa idin ka horeeyaa howlaha u socoteen waa diyaar waxaan tagaynaa goobihii soo dhaweynta hadii alla idmo oo la idinku talagalay intaasi kadib ayaa shacabkii soo dhaweeyay waxa kelmado ku saabsan ujeedkooda halkaasi ka yiri qaar ka mid ah xubnaha wafdigan oo uu ka mid yahay Maxamuud Xasan Cilmi oo ah ninka hogaaminaya wafdigan waxaana halkaasi ay kula hadleen qaybaha kala duwan ee bulshada isaga iyo xubnaha kale ee wehelinaya qaar ka mid ah gacmo furan wadoonahay barakallahu fiikum salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh daaru martaba reer Garbaare ay wada socdaan malayn sidaa gurigeena loogu soo dhaweeyay oo quruxda badan aadaan kaga mahadcelinayna waa dareeminaa inaan gurigeena joogno waftigu waa wafti reer Garbaare ee dhamaantiis waa wafti reer Gadaa waa idin ku soo biirnay waan idin imaanay waxaan kaga mahadcelinaynaa soo dhaweyntii sidoo kale waxaan idin leenahay barwaaqadaad ku sugantihiin nimcadaad ku sugantihiin iyo nabadaad ku sugantihiin dawladdiina aad aqoonsateen aad ayaan kaga mahadcelinaynaa waa dhownahay insha Allah ta'ala qorshaha wadnayna waa idin ku imaan doonaa barakallahu fiikum hawdii baa macallin waxaan ugu salaamayaa salaanta islaamka 114 muddo badan baa taagnaydeen maanta Garbaare waxay u tahay maalin taariikhi oo guul ah waa maalintii ay muxuu ahaay ka muuqan lahayd gobolada kale oo dhan waxaan ku rajaynahay faahfaahinta iyo waxa wadnana insha Allah bari baan ku sheegi doonaa soo dhaweyn wanaagsan waana mahadsantihiin Garbaare aad iyo aad baad mahadsantihiin soo dhaweynta qiimaha aad noo samayseen annagana hadda wixii aan idin wadna iyo wixii akhbaar aan kala heli doonaa insha Allah aad iyo aad baa mahadsantihiin bismillah ilaahay baa mahad iska leh maanta sharafta iyo wanaaga iyo qiimaha reer Garbaare ay waftigeena hore u soo dhaweeyeen kan maanta ay u soo dhaweeyeen waxaan leeyahay reer Garbaare hambalyo waa dad isku xiran waa dad 25 sano ka hor dawladda ugu dambeysay maanta waxaan leeyahay hambalyo mar labaad Kaastro oo ku soo dhaweeyay magaalada Garbaare waxaan leeyahay hambalyo ninkii diijira Garbaare waa mucaarad Garbaare waa muayid xubnaha wafdigan ayaa lagu wadaa in kulamo wadashi ay la yeeshaan qaybaha kala duwan ee bulshada ee ku dhaqan xarunta gobolka Garbaare waxaana kulankan uu noqonayaa kii ugu horeeyay noociisa ka dhaca degmada Garbaare ee xarunta gobolka Gado.